Waxaa la sheegay in hal habeen gudaheed boqortooyo dhan ay badda liqday. Boqortooyadaas waxay ahayd Atlantis, magaalo aad u awood badan, hodan ah, oo ka horumarsan boqortooyooyin badan oo waqtigeeda jiray. Faylasufkii Giriigga ahaa Plato ayaa sheegay in Atlantis ay ahayd mid ciidan, awood badan iyo magaalo si cajiib ah loo dhisay. Laakiin awooddeeda ayaa laga yaabaa inay noqotay sababtii burburkeeda. Hal maalin, dhul gariir xoog leh ayaa dhacay, kadib daadad iyo hirar waaweyn ayaa yimid. Sida sheekadu sheegayso, muddo hal maalin iyo hal habeen gudaheed, Atlantis waxay ku luntay badda hoosteeda. Halkan ayaa sirta dhabta ahi ka bilaabataa. Ilaa maanta, cidna ma helin halka saxda ah ee Atlantis ku taal. Qaar waxay leeyihiin sheeko keliya ayay ahayd, qaar kalena waxay rumaysan yihiin inay weli ku qarsoon tahay meel badda hoosteeda ah. Marka, Atlantis ma ahayd boqortooyo dhab ah oo dunidu ilowday, mise waxay ahayd sirtii ugu weyneed ee taariikhda abid la sameeyey.